guud ahaanba waxaa saaka iridaha loo laabay goobaha ganacsi ee gudaha magaalada Berbera sababo la xiriira kor u kaca sarifka lacagta dollarka iyo sicir bararka soo food saaray maciishada qutul daruuriga ah waxayna qaar ka mid ah ganacsatada yaryar ee meheradaha ku haystay magaalada Berbera noo sheegeen in ay garanba waayeen qiimo ay wax kaga iibiyaan bulshada ku dhaqan magaalada Berbera ismaantiga iyagu wuxuu taaran yahay shirkii shalay too albaabada la isugu xiray ee la yiri aan joojina shaqada tan wax la wax inoo anfacaya ma jiree danyarihii way nagu baqtiyay cid hoos inoo eegaysaana ma jirto dawladdiina indhaha ka qarsatay ayaa ismaantiga iyagu ahaa markii aan saaka aan garanaysa aan wax ka bedelay amarka iyaga raacana taariyo ciidamo waxba magaalada la tuday gabadhiiba waxa la garab dhigay ciidan markaasaan naxno sii yaabnay in la wacyi geliyo dollarka ummadda ka shaqaysanaysa ee xagga dambe gelisay annaguna waxaanu ku dadaalaynaa inaanu maatadii gobolka saaxilnahayo aanan wax arqalada wadin annaga qaar baa naga sii liita dollarka milyankaana la ka qabto qaylo dheer iyo qaylo dhow baanu ka dhigna laba xaalo baan dawladda oo waliba codsiya ayaan u gudbinayaa anigu waxaan leeyahay dawladda Soomaaliland ha shaqeeyaan baanankii dawladda Soomaaliland ee shaqeyn jiray sida baananka caalamka ama dawladuhu u shaqeeyaan midda labaad lacagta sanadka cusub ee sanadkii walba la soo daabacayna dawladdu ha joojiso taasi waa talo iyo codsi isku jira maanta waxaan u nimid halkan waa dhibaatana saameysay annaga oo dadkii danyarta ah gobolka ka ganacsanayay waliba ganacsiga ugu hooseysay qudrad iyo hilib iyo in maqaxi haysatana ka kooban waxa weeyaan dollarkan hog walba la galay nimanku ay habeen iyo maalin dadkana qaaliga ugu sarfeen kuwana jabnaanta ka qaadanaya laba qaybood ka dhigteen kii dollarka loo soo direysatay 700 ku siinayaan kii kalena 900 inta ugu garaacaan anana baradhadii iyo basashii iyo tabaaniba doorna laga dhigay waxaan ku codsanaynaa madaxtooyada maanta dal kale waanu ka talinaa inay ka soo galaan dadka shaqada yarta baabaya barnaamijyada bay ku baabeen barna waa kuna magaaladii bay liitaan ha eegaan oo hoos ha eegaan oo dadkoodan dhaca jixaan waxaanay ganacsatada dhexe ee gobolka saaxil waxaanay hudheelayaashii waxaanay qusuladii waxaanay ibliyaashii waxaan ku soo baxnay washir bar saabka magaalada waxa ka dhacay saxiib barar aan la malay karin oo loo dul qaadan karin boqolkii doolar 1 milyan iyo boqol buu marayaa waxba waanu iibi kari weynay magaalada barbaa xiran barka kalena waa la xiray warasaabka iyo maayirka ayaa yiri fura inta fura xidhe hureerada iyo qudaarta iyo sariibada fura amarkii barsaabkan ku furay markii hore waa la xiray waxa lagu furay in dadka la isu naxariisto la eego mar aan gudoomiyaha gobolka saaxil jaamac yuusuf axmed wax ka weydiiyay xukuumad ahaan sida ay ula muuqato amuurtaasi waxa uu yiri sicir bararkuna waa si ugu dhaqsiya badan wax looga qaban doono insha Allah taala cidii go'aanada la soo saaro ku dhaqweydana marka talaabo sharciga ku dhaqaadayna waxaan si dadweynaha uga digayaa Soomaaliland dadka sariflayaasha ay u arxamayaan iyo marka reedka sixirka loo gooyo ay suuqa madow kaga sarifanayaan dadku iyo ka qayb qaadanaya sicir bararka dadka waxaan aad iyo aad ugu rajaynaynaa in go'aamada ay soo saarto dawladdu ay la hirgeliyaan dadweynahana waxaa looga digaynaa in dad siyaasiyiina ama wax kala wata ama buuq kala wata ay ka faa'iidaystaan arrin yaroo jirto oo la xalliyi karo inay ka faa'iidaystaan bangiyada iyo wasaaradda maaliyadda Soomaaliland ayaa la oran karaa waxa ay ka gaabiyeen sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen qiimaha shilinka Soomaaliland ee dhulka galay intii uu qaranka Soomaaliland jiray waa markii koobaad ee $100 uu gaaro 950 shilinka Soomaaliland waxaana la oran karaa waxa gaarsiiyay heerkaasi shirkadaha waaweyn ee ka mid ka tahay shirkadda DP World oo lagu eedeynayo in lacagta cash ay dekadu qabato ay suuqyada kaga bedelato lacagtan dollarka ah isla markaana ay geysato bangiga dahabshiil iyo shirkadaha qaadka keena sida Faraska 571 oo lacagta qalaad u dira dalka Ethiopia Cabdirashiid Mubarak Cabdi Cabdirashiid Suul Somali Cable TV Berbera